koobka qaramada qaaradda African Cup of Nations sanadihii ugu dambeeyay xiisihiisa xamaasadiisu cirka ay isku sii shareerayay. Koobkan waxa la qabtay markii ugu horeysay sanadii markuu ahaa 1957 xilliga waxa ku guuleystay wadanka lagu magacaabo Masar iyaga oo ka qaaday dalka Itoobiya. Tartankan xulalka ugu hanashada badan afarta xul ee ugu hanashada badan booska koowaad waxa ka soo galay wadanka lagu magacaabo Masar. 7 jeer ayay tartankan hanteen xulka lagu magacaabo Egypt. booska labaad waxa ka soo galay wadanka ayagana lagu magacaabo Cameroon oo ayaga hantay 4 jeer. si lamida booska saddexaad wadanka Ghana ayaa ka soo galay waxayna hanteen 4 jeer ayay tartanka hanteen. booska ugu dambeeyay afraadna waxa ka soo galay wadanka lagu magacaabo Nigeria ayaga oo hantay koobkan 3 jeer. tartankan ayaa noqonaya mid aad u xiiso badan sanadkan. wadamada lagu magacaabo Senegal iyo sidoo kale Algeria ayaa isku arki doona finaalaha tartankan. magaalada Qaahira ay ka dhici doontaa finaalihiisa. finaalaha tartankan xulka hanta ayaa noqon doona in uu ku guuleysan doono qiimo lacageed dhan 4.5 milyan oo euro. tartanka lagu magacaabo African Cup of Nations sanadkan waxa uu noqon doonaa mid aad u xiiso badan. si lamida xulka lagu magacaabo Senegal iyo xulka lagu magacaabo Algeria waxay yimaadeen aan ku hormaro xulka lagu magacaabo Algeria muddo 2 jeer ayay yimaadeen finaalaha tartankan African Cup of Nations. sanadii 1980 ayay yimaadeen xulka lagu magacaabo Algeria waxaana ka qaaday xulka lagu magacaabo Nigeria ciyaar ku soo dhamaatay 3 gool iyo eber ee dhacday 1980. 10 sano kadib xulka lagu magacaabo Algeria ayaa mar kale finaal yimid waxayna ka qaaday mase ka aarsadeen xulka lagu magacaabo Nigeria iyada oo ciyaar ku soo dhamaatay 1 gool iyo eber ay kaga qaadeen xulka lagu magacaabo Nigeria. ciyaarta waxay ciyaar xiiso badan ay ka aarsatay xulka lagu magacaabo Nigeria oo Algeria ayaa wax aarsatay oo Nigeria ayaa laga badiyay. si lamid ah xulka qaranka lagu magacaabo Senegal waxay yimaadeen finaal 1 jeer 2002 ayay finaal yimaadeen xulka lagu magacaabo Senegal waxaana ka qaaday Cameroon. tartanka sanadkan waxa uu noqon doonaa mid aad u xiiso badan. finaalka waxa uu ka dhici doonaa garoonka lagu magacaabo Qaahiro International Stadium garoonka lagu magacaabo ee ku yaala wadanka lagu magacaabo Masar gaar ahaan caasimada Qaahira. garoonka ayaa lagu ciyaari doonaa Andre Gomes ninka lagu magacaabo ayaa ciyaartan dhexdhexaadii ka noqon doona. daawade maxaa isleedahay kulankan maxaad ka filaysaa kulankan mamaanay xirtiisa ayaa ka adkaan doonta Riyad Mahrez yaa u sacabtumaysa yaa difooso u noqon doonta mamaanay ayaa taageeri doonta mas ninka lagu magacaabo Riyad Mahrez ayaa difooso u noqon doonta. qaybta dambe ee commentiga ayaad noogu soo aragtay dhibin kartaa wax walbo ku aadan kulankan maxaad ka filaysaa xiise intee leeg ayuu kugu leeyahay maxaad ka aaminsan tahay koobka qaramada qaaradda Afrika sanadada dambe maxaad dhihi doontaa su'aalaha idil qaybta hoose ee commentiga ayaad noogu aragtay dhibin kartaa. kulankana waxa uu noqon doonaa kulan ka duwan kulamadii hore iyo finaalihii hore ee koobka qaramada qaaradda Afrika aad ku arki jirteen. Saciid Maane oo soo hantay tartanka ugu xiisaha badan Yurub ee Champions League ee Riyad Mahrez oo asiga soo qaaday horyaalka ugu mashquulka badan ee Yurub ee Premier League. labadan ciyaartooy oo heerka caalami ayaa iskaga hor imaan doona tartankan waxaan arki doonaa xiisaha iyo xamaasada tartankan wuxuu dhici doonaa habeenka Jimcaha 4 saac ayaa la daawan doonaa. boqolaal mucaashaqiin ah oo kubadda cagta Afrika aad u xiiseysa ayaa indhaha ku hayn doonta xiisaha ciyaaryahanka lagu magacaabo Riyad Mahrez iyo ninka lagu magacaabo Sadio Mane. Cabdishakuur Cabdulqaadir Cali ayaa nahay kulankan waxa uu noqon doonaa kulan ka xamaasad badan finaalihii hore ee koobka qaramada qaaradda Afrika.